Jamaahiirta Manchester United oo ku baaqay in la kansalo heshiiska amaahda ah ee Sofiane Amrabat iyo Bukayo Saka oo barbareen kara rikoor ay Premier League ka dhigeen Dennis Bergkamp iyo Harry Kane. Haddaba muxuu yahay rikoorkaasi? Muuqaalkan ayaa kugula wadaagi doona, balse marka hore waxaa ka codsanayaa inaad ku soo biirto bartayda TikTok aad follow soo tiraahdo, sidoo kale dirista jeer iyo ka badan aad daawato calaamada goobi linki si uu dad badan u gaaro. Sidoo kale soo booqo barahayga kale ee Facebook iyo YouTube ee Sulaiman Al Adala. Mahadsanid. Taageerayaasha kooxda Manchester United ayaa doonaya in Sofiane Amrabat uu kooxda ka tago kadib markii uu sameeyay qaladkii foosha xumaa ee sababay goolkii Erling Haaland ee xaqiijiyay guusha Manchester City. Man United ayaa goolasha ku hormartay kadib markii uu shabaqa u soo taabtay Marcus Rashford, laakiin laba gool oo uu dhaliyay Phil Foden iyo gool Erling Haaland ah ayaa dhameystiray guusha Manchester City. Markii ay ciyaarta mareysay laba gool Man United waxaa ku jirtay rajo ah inay ciyaarta barbareen karaan. Si kastaba Sofiane Amrabat ayaa waxaa kubadda kaga qaatay xirada ganaaxa banaankeeda Rodri, kaasi oo kubadda siiyay Erling Haaland oo shabaqa soo taabtay dhaliyana goolka saddexaad ee Manchester City. Qaladka xidig reer Morocco ayaa yimid xilli taageerayaasha Man United ay durba qaati ay ka taagnaayeen qaab ciyaareedkiisa, isagoo ku guuldareystay inuu soo bandhigo tayadii iyo wacdarihii wadankiisa u soo bandhigay koobkii adduunyada ee Qatar ka dhacay. Inkastoo 17 jirkan uu amaah uga soo maqay Fiorentina, haddana United waxay bixisay 8.5 milyan oo kani oo heshiiskiisa amaahda ah, iyadoo qiyaar u haysata inay si joogto ah ugu iibsato 22.4 milyan oo kani. Laakiin taageerayaasha ma doonayaan in United ay si joogto ah u iibsato laacibkani. Taageere ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray ma sugi karo in Amrabat uu si dhaqso ah uga tago kooxdayda. Heerkiisa waa heerka Europe Conference League. Mid labaad ayaa yiri kansala heshiiska amaahda ah ee Amrabat ciyaarta kadib. Mid saddexaad ayaa soo qoray Amrabat waa saxiixii ugu xumaa ee kadib waayihii Ferguson. Malaha waa mid ka mid ah ciyaartoydii ugu xumaa ee Man United u dheela abid, waa mid heer hooseeya ayuu hadalkiisa sii raaciyay. Si kastaba ha ahaatee, jamaahiirta kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa dhaleeceyn xooggan u jeediyay laacibka Sofiane Amrabat kadib qaladkii uu sameeyay kulankii xalay kooxdiisa Manchester United ee guuldarada 3 goolka ay kala kulantay naadiga Manchester City kulan qaybka ah horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League. Dhanka kale, xidiga garabka uga ciyaara kooxda kubadda cagta Arsenal Bukayo Saka ayaa Dennis Bergkamp iyo Harry Kane kula biiri kara rikoor gool dhalineed gaar ah oo Premier League ah kulanka ay caawa Arsenal booqanayso garoonka Bramall Lane oo ka ciyaarto naadiga Sheffield United. 22 sano jirkan ayaa sii wata inuu soo bandhigo qaab ciyaareed cajiib ah iyo inuu yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican dalka, isagoo dhaliyay 16 gool iyo sidoo kale 13 caawin ah 34 kulan oo u saftay kooxda Mikel Arteta inta lagu guda jiro xilli ciyaareedka haatan socda. 13 ka mid ah goolashaasi iyo waliba 8 caawin ayaa yimid 25 kulan oo Premier League ah xilli uu sii wato waxqabadkiisa cajiibka ah ee xilli ciyaareedkan. Waxqabadkaasi waxaa ka mid ah 2 gool oo uu ka dhaliyay kulankii ay 6 iyo waxba Arsenal kaga adkaatay naadiga West Ham kulan qaybka horyaalka Premier League iyo kulankii xigay ay Burnley 5 iyo waxba ku xasuuqday kooxdiisa Arsenal. Sidoo kale Saka ayaa dhaliyay gool kulankii kooxdiisu 4 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Newcastle United, isagoo sidaas ku dhaliyay gool kulankii shanaad ee Premier League oo xiriir ah. Waana ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Ingiriis ah oo sidaas u sameeyay Arsenal dan iyo Alan Wright 1994. Saka ayaa haatan magaciisa ku qori kara taariikhda ciyaaryahankii saddexaad ee horyaalka Premier League ka dhaliya 2 gool 3 kulan oo isku xigta oo marti yahay tartanka horyaalka Premier League. Kaliya weeriyaankii hore ee kooxda Arsenal Dennis Bergkamp iyo weeriyaankii hore ee naadiga Tottenham Harry Kane ayaa ku guuleystay in ay rikoorkaasi ka dhigaan Premier League, iyadoo Dennis Bergkamp uu sameeyay kulamadii Chelsea, Leicester City iyo Southampton xilli ciyaareedkii 1997-98. kooxahaasi ayuuna ka dhaliyay 3 kulan oo isku xigta min 2 gool. Sidoo kale Harry Kane oo ah gool dhaliyaha labaad ee ugu sareeya horyaalka Premier League ayaa rikoorkaasi dhigay isagoo min 2 gool ka dhaliyay kulamadii Everton, West Ham United iyo Huddersfield Town xilli ciyaareedkii 2017-2018. Laacibka kooxda Arsenal Bukayo Saka ayaana doonaya in rikoorkaasi caawa uu kula biiro kulanka ay kooxdiisu la ciyaarayso Sheffield United si uu 2 gool kaga dhaliyo kulankaasi. Haddii ay dhacdo in 2 gool uu ka dhaliyo Bukayo Saka kooxda Sheffield United kulanka caawa, waxa uu rikoorkaasi kula biiri karaa Dennis Bergkamp iyo Harry Kane oo hore sidaan u sameeyay.